أما بعد الحمد لله إلهي ما دسكله سيداد أركتنا من موقته مشروعي أمر اسمه إمام حبيب فاونديشن أو إن دقمدان متولدين الله دسي سكول وحبرشة وقبل لم دكسي هوسة دحي سرة هنقياسنا إن شاء الله مع المحصص إنه إلهي نو جبوبه وأن جعلنا هنا دفعة يجوه رئيسي أم هوشي أن قبلونه وإسقريستي أم حبرشدي دي إلهي ربي الله تعالى مركز سيد أدي موقته أما كم موقته بوركان هوستي يالا waxaa bixisay ama fankan soo qaban qaabisay ama bixisay ama lacagta soo aruurisay Helida Ilmad Foundation xafiiskeedu weyn oo ku yaala UK inkastoo ay tahay international organization waxa kale oo qayb libaxa ka qaadatay oo fududeysay hawlo badan la yiraahdo iftiin education ayadana qayb weyn ay ka qaadatay marka alxamdulillah ilaa baad iskale marka waxaan jecelahay ilaahay yiraahdo marka sida idin muuqata sawirada ku arki doontaan gabagabadii ama gunaanadkii dhismihii iskuulka tuulada degmada Cadda Walaal insha Allah waxaan jecelnahay inaan siino xitaa iskuulkan degmada maadaama ay noqoto waxay ugu horeeyay degmada yeelato in magacana iskuulkan ay degmada oo qaato oo yiraahdo dugsiga hoose dhexe ee degmada Cadda Walaal hadii ilaahay yiraahdo insha Allah taala ayaan siin doonaa magaca degmada marka waxaan rajaynaynaa cid kastoo danaynaysa ama rabta inay ka qayb qaadato wali inuu furan yahay mashruucan shawshi aysan Soomaalidu tiraahdo faanole fariiq kama qodna bilow ay tahay asaas ay tahay qof kasta maanta muwaadin Soomaaliyeed dalha joogo dibadda joogo wixii kalaankiisa oo ka qayb qaadan karo aqoontiisa xirfadiisa waayagnimadiisa aqoon macnaha dhaqaalihiisa wax walba inay u furan tahay ay waliba ay ku ekaan degmadan iyo tuuladan iyo magaaladan meel kasta baahidii ay ka jirtaan ay gaarto ayaan jecelahay insha Allah taala dadkiina ay sida ay ku baraarugaan insha Allah taala marka waxaan fursad siin doonaa insha Allah taala akhiyan walaalkayga Usmaan Macalin Xasan ugaaska liirada Macalin Xasan Geelle oo ah manduub ama nin madax ka ah iftiin education and development kaasoo muddo badan soo wada shaqeyn saaxiibtiin weyn naga dhaxaysay gaar ahaan qaab macnaha shaqo markaasaan ku soo dhaweynaa mikrofoonka si uu kalimo ugu yiraahdo maanta booqashada iyo kormeerkan ku nimid mashruucan ama dugsigan dhismihiisa dii ilaahay insha Allah taala assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh